السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتان قروح بدن soo dhawaada janaalkana please subscribe noo saarana soo dhaweeya insha Allah sila socod wanaagsan. maanta waxaan sameysanaynaa batarka timaha ama suuga toobiyan sida u taqaaniin oo og tahay tinta sida meelaha babanaan tinta daadanaysa wax walba u roon. markaa kaas waxaa ku haysanaa waxaa ka sameysan kartaa whipping cream, heavy cream, cooking cream, anything aad heli kartid. caanaha brookside ka taa ka sameysan kartaa. anaga halkaas waxaa noogu jiro 2 xabo isticmaalaynaa, 2 xabo khalaadada kusoo shubaneynaa. marka hadda suugaas Etoobiyaanka wuxuu taraa waa ogtiin waxtarkiisa la idinkama sheekeenayo. gabar walba tinteeda jecel ha isku ogaato maxaa saaloon iyo qashin ugu dawareeganaysiin oo lacag la idinkaga qaadanayo adinka gurigeena wax walba ku sameysan kartiin. hadda waxaa ku darsanaynaa biyo qabow. masti waxaa inaa markaa khalaadada ku shubtid biyo qabow ku shubtid. biyo qabow la'aantiisa mashiid maayo oo suuga kaaga soo baxayo. si uu suuga kaaga soo baxo ku darso biyo qabow. markaa biyo qabow ku dartid khalaadada ku shidatid sida u jeedid ba anaga waa shidanay. markaa shidatid oo cambaar ku socdo caanihi iyo suugiisa oo kala baxayaan. bur iyo biyo hadaa maqli jirtay oo kala baxayaan. haddana waa kana suuga ka miirnaynaa biyihii caanihi ama wasaqdi ka soo baxdana iska daadanaynaa insha Allah. isha nagu haya naga caajisina soo dhawaada. sida u jeedin baa kaas waa soo shiidanay waa kala soo baxnay biyihii. marka halkaas ay maraysid caano meer ka soo baxdid oo biyihii ay ku kala miirnaa waxa laga rabaa inaa biyo qabow isticmaashid. biyo qabow waa isticmaalaynaa waa kaas markaa biyo qabow ku ridid waxay ku fududeynaysaa ama ku sahlaysaa inuu subagii uusan ka dhalaalin oo ku sii aruuro aad suuga si fiican u la baxdid. waa tuujinaynaa biyaha qabow ku walaaqayna si caanaha shirkooda iskaga dhameeno. markaa shirka iska dhameena caana oo biyo cad ku shubano oo si fiican u kala baxsano si qurux badan oo noogu soo baxa talaagada gashanayna. markuu talaagada noogu jiro maalinta aan rabno timaha inaa isticmaalo amarsanina. waxaa kale u isticmaali kartaa oo aad u fiican yahay jirka qalalan ama jirka aad u qarqarxsan iyo dildilaaca streak mark gabdhaha jirkaga jiro inta daawooyin kiimikaal ka dawareegaysiin asaga laftirkiisa tinta jirka amarsid sida tinta u marsanayso kala jirka taa ina maqaarku u baahan yahay wax la mariyaa oo qoyo dildilaac ay aad tadawbari amarsid xogaa waa dareemo isbedel aad u weyn ka dareemaysaa. marka soo tijaabiye insha Allah. feedback-gan waa idinka sugi doonaa insha Allah biidhnillaahi karim. dadka waliba aad jirkooda qaleelku u yahay ilmaha xitaa xasaasiyada qabo oo kareemada iyo waxaas ay dhibayaan oo xilliga qaboobaha oo kaleeto oo jirkii waxaas uu qarqarxo waa u marsan kartaan. soo dhawaada u jeedin sida aniga gacmahey uga jeediyeen sidoo